لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كان أولينتا إسلامك. برنامجدي هوري waxaan kaga soo hadalnay in qofka ku soo biiro jamaacada Axmadiya uu beeco ama axadi la galo khaliifka hoggaanka jamaacada markaa haya. Axadigaas oo 10 shardi ah oo dhammaantoodna ku salaysan kitaabka Quraanka ah iyo sunnaha rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo in nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu inagula dardaarmay inaynu beeco ka qaadano ama beeco la galno Mahdiga alayhi salaam. waxaanu yiri فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وحصو صاري حديث كان ابن ماجه. حديث كان معنيه waxa weeye haddii aad aragtaan ama aad la kulantaan Mahdiga beeco ka qaata oo axadi la gala xitaa hadday kalifayso inaad ku gurguurataan baraf guudkii macnuhu waxa weeye dhibaato kasta u mara oo gaadha oo beeco ka qaata oo axadi la gala Mahdiga oo ku biira jamaacadiisa sababtu waxa weeye فإنه خليفة الله المهدي وخليف الله أو مهدي. خليف اللهنا هو أيان وقصو هذا الله أو وحوي والنبي لكن هو النبي خادم أو أديجية رسول كيلا محمد صلى الله عليه وسلم. مهدي عليه السلام مقام كان نبي نبدا وحو كجاري وحوي وبركة رسول كيلا محمد صلى الله عليه وسلم. وحمركة برنامج سي وضعنا فافاهنت شروطها بيعة أما أحدقة وحنقصوا هذا اللي شرطي كوباد كيلا بعد وحا أينو كهد ليني شرطي صدحات. برنامجكii hore waxaanu ka hadlaynay salaada marka qoraal kamida Mahdiga alayhi salaam oo la xiriira salaada la xiriira ayaan marka hore idin soo gudbinayaa. waxa Mahdigu alayhi salaam yiri isagoo u nasteexaynaya jamaacadiisa toos habeenkii oo alle barya inuu idinku hanuuniyo طريقي ستوصل. أصحابتي رسول كينو صلى الله عليه وسلم sidoo kale ayay tababarka u qaateen. maxay ahaan jireen
waxay la mid ahaayeen sida midho la beeray oo rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam waraabiyey oo u duceeyey. midhuhuna waxay ahaayeen kuwo caafimaad qaba, ciidduna waxay ahayd ciid wanaagsan. markay baxeenna waxay dhaleen midho kale oo wanaagsan. waxay raaceen waa asxaabtii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam, waxay raaceen dariiqii uu maray rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam oo aanay dhinacna uga leexan. habeen iyo maalintoonna may nasan. waa in aydin, wuxuu la hadlayaa jamaacadiisa, waa in aydin si dhab ah u toobad keentaan oo u toostaan salaada tahajudka. cali mahduub calayhi salaam wuxuu leeyahay si dhab ah u toobad keena oo alle u toobad keena oo u kaca salaada habeenkii tahajudka. waa inaad maydhaan qalbigiina oo hurdada ka toostaan oo hadalkiina iyo camalkiina ka yeeshaan sida alle idin faray. in hadalkiina iyo camalkiina aad ka yeeshaan sida alle idin faray. wuxuu mahadigu ereyadan ku qoray malfuudaad juuska 1 bejka 28. shardiga 3aad waxaa kaloo ka mid ah in qofka ku soo biiro jamaacada axmediya uu si joogto ah ugu saliyo nabigeena Muhammad sala allahu calayhi wasalam. waana sida alle quraanka inagu faray. acuudu billahi min ashaytaani rajiim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسورة حوي الأحزاب آيات 57. آيات معناه وحوي الله يا ملائكتيسو waxay ku saliyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam ee kuwa rumeeyow ku saliya korkiisa oo ku salaama salaan nabadgeliyo. wuxuu wariyey cabdullaahi bin mascuud alla raaliha ka noqdee in rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam yidhi maalinta qiyaamaha kuwa iigu dhowey waa kuwa iigu saliga badan. maalinta qiyaamaha kuwa iigu dhowey waa kuwa iigu saliga badan. waxaa soo saaray xadiiskan sunan at-Tirmidhi. mahduub calayhi salaam wuxuu yidhi waqti baa jiray aan in badan ku saliyey rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam, waayo waxaan hubay in dariiqa alle loo maraa ama alle lagu gaadhaa uu aada cidhiidhi u yahay oo lagu heli karo oo qura ama lagu gaadhi karo oo qura wasiilada ama ku xidhnaanta rasuulkeena Muhammad sala allahu calayhi wasalam oo loo maro rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. sida alla yidhi subxaanahu wa tacaala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغوا إليه الوسيلة وسورة حوي المائدة آيات 66 wuxuu yidhi mahadigu calayhi salaam markaa muddo badan caadaystay inaan in badan ku saliyo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ayaan kashaf ku arkay kashafku waxa weeye adoo soo jeeda ayaa wixii markaa ilaahay uu rabo inuu ku tuso uu ku tusayaa ayaan kashaf ku arkay in laba nin ay gurigayga soo galeen midna xagga hore ka soo galay midna xagga dambe ka soo galay waxayna garbaha ku sidaan laba sibraar oo nuur alle ka buuxo waxayna igu yidhaahdeen haadaa bimaa sallayta calaa muxamed macnuhu yahay kani waa labadan sibraaree uu nuurka alle ka buuxo waa abaalmarin salligii aada ku saliyeysay muxamed sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam mahadigu wuxuu ereyadan ku qoray kitaab uu qoray oo la yidhaahdo xaqiiqatulwaxyi bogga 128 waxaa kale oo mahadigu yidhi calayhi salaam qofku waa addoonna waa ka fuliya awaamiirta uu faro sayidka isaga lihi yani addoonku wuxuu fuliyaa awaamiirta kan lihi uu faro sidoo kale haddii aad doonayso in aada nimco ku hesho barakada rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam waa inaad u noqotaa addoon sida alle qur-aanka ku yidhi subxaanahu wa tacaala acuudu billahi min ashaytaani arajiim qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim waxa weeye suuradda azumar aayadda 54 macnaha ereyga addoon ee aayadda ku jira waxaa loola jeedaa waa addoon fuliya waxa la faro waa addoon fuliya waxa la faro kama hadlayso addoonnimada ah in alle ina abuuray si aada addoon ugu noqoto rasuulkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam waa inaad caadaysato inaad ku salido oo salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa inaad joogto u caadaysato waa in aad caasiyin waana inaad awaamiirtiisa oo dhan raacdo oo fuliso yani mahdigu calayhi salaam waxa uu leeyahay waa inaad addoon u noqoto rasuulkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam si barakada rasuulkeena markaa sala allahu calayhi wasalam aada wax ugu hesho markaa wuxuu leeyahay waa inaad caadaysato inaad ku salido waa inaad caasiin waana inaad fuliso awaamirtiisa oo dhan macnuu waxa weye waa inaad sunnihiisa aada raacdo weeye wuxuu ereyadan mahadigu ku qoray journaal soo bixi jiray oo la odhan jiray albeder juska 24 bisha 4 1903 waana bogga 109 shardiga saddexaad waxaa kaloo ka mid ah ka ku soo biiray jamaacadda axmediya inuu ka dhigto caado ama caadaysto inuu alla weydiisto dembi dhaaf istikfaar la yimaado mahdigu calayhi salaam wuxuu yidhi
marka qofku alle ka baryo inuu awood siiyo waa marka uu istikfaar la yimaado alle dembi dhaaf weydiisto waxa awood lagu heli karaa waa gargaarka ruuxul qudus taasoo qofka ka ilaalisa inuu dembi sameeyo sida ambiyada alle oo kale haddiise qofka dembi dhaafka alla weydiisanayaa uu dembiile yahay macnuhu waxa weeye haddii dembi ka dhacay markaa istikfaarku wuxuu ka badbaadiyaa ciqaabta dembigii uu sameeyey dembiilayaashase aan alle dembi dhaaf weydiisan waxaa ku dhaca ciqaabta dembiga ay sameeyeen wuxuu ereyada mahaduu ku qoray kishti nuux ruuxaani khazaayin juuska 19 bejka 34 waxaa kale oo mahadigu calayhi salaam yidhi dadka qaar wacyi bay u leeyihiin oo way og yihiin waxa dembigu yahay dadka qaarse wacyi uma laha kama warqabaan waxa dembigu uu yahay sidaas awgeed ayaa alle ina faray inaynu istikfaar ama dembi dhaaf alla weydiisano goor kasta si qofku alle uga baryo in alle ka ilaaliyo dembiga kiisa muuqda ka qarsoon ka aad og tahay iyo ka aanad ogeyn ka lagu falo gamcaha lugaha carabka sanka ama indhaha macnuhu waxa weeye xubin kasta oo jidhkaaga ka mid ahi dembi ayay kuu soo jiidi kartaa marka waa inaad alle dembi dhaaf weydiisataa goor kasta wakhti kasta wuxuu yidhi mahadigu calayhi salaam wakhtiga aan hadda ku jirno waa inaan alle u barino sidii nebi aadan calayhi salaam uu alle u baryey allana ku xafiday kitaabka qur-aanka ah acuudu billaahi min ashaytaani arajiim rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin waa suuradda waxa weeye alacraaf aayadda 24 macnaha aayaddan oo ah rabbigayow naftayadii ayaanu dulminay haddii aanad noo dembi dhaafin oo noo naxariisanna waxaanu ka mid noqon kuwa khasaaray mahadigu wuxuu yidhi ducadani waa ducada nebi aadan calayhi salaam waa duco la aqbalay macnuhu waxa weeye haddii alle ka aqbalay nebi aadan calayhi salaam adna waa ka aqbali karaa iska ilaali oo ka digtoonow inaad noloshan isku ilowdo qof kasta oo iska ilaaliya inuu isku ilaabo noloshan macnuhu waxa weeye aakhiro xasuusan waxaa la arkaa in aan masiibo weyni ku dhicin waayo masiibooyinku ma dhacaan idan la-aan haddaan alle idmin
waxaa kale mahadigu yidhi waxaa waxyi la iigu sheegay inaan ku ducaysto ducadan rabbi kulli shayin khaadimuka rabbi faxfadnii wansurnii warxamnii macnaha ducadan waxaa weeye rabbigayow wax kastaa aday kuu adeegaan aday ku adeecaan rabbiyow i ilaali oo i caawi oo i naxariiso waxaa kale oo mahadigu calayhi salaam yidhi waxaa alla yidhi subxaanahu watacaalaaye acuudu billaahi min ashaytaan rajiim waan istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh waa suuradda waxaa weeye alhuud suuradda waxaa weeye huud aayadda 4 aayaddan macnaheedu waxaa weeye dembi dhaaf weydiista rabbigiina una toobad keena wuxuu yidhi xasuusnow muslimiinta waxaa alla siiyey 2 shay ama 2 waxbaa alla siiyey mid waxa weeye istikfaarka inay dembi dhaaf alla weydiistaan midna waxa weeye toobad keenista mid waa in alle awood ku siiyo ka kalena waa awoodii alle ku siiyey in aad ku muujiso oo ku camal fasho mid waxa weeye alle awood ku siiyo ka kalena waxa weeye awoodda alle ku siiyey inaad ku camal fasho istikfaarku wuxuu yidhi waa in awood alle ku siiyo waxaa kale oo uu yidhi istikfaarku aada alla dembi dhaaf weydiisanaysaa waxa weeye in alle kuu gargaaro suufiyiintu waxay yidhaahdaan sida jimicsigu ama ciyaaruhu ay jidhka u xoojiyaan sidoo kale ayaa istikfaarku u xoojiyaa ruuxa qofka qalbiguna ku helaa istiqaamo iyo adkaysi kii marka raba in ruuxiisu awood yeesho waa inuu caadaysto istikfaar inuu alla si joogto ah u weydiisto dembi dhaaf shardiga 3aad waxaa kaloo ka mid ah in qofka ku soo biiro jamaacada axmediya xasuusnaado nimcooyinka alle ku manaystay una mahadnaqo waxaa alle suuradda qur-aanka ku bilaabo suuradda alfaatixa ku yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin macnaheedu yahay ammaan oo dhan alle ayaa leh rabbiga caalamiinka waxa kale oo alle qur-aanka ku yidhi acuudu billaahi min ashaytaan rajiim wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa waa suuradda waxaa weeye ibraahim aayadda 35 aayaddan macnaheedu waxa weeye haddii aada isku daydaan inaad tirisaan nimcooyinka alle idinku manaystay ma koobi doontaan haddii marka aad koobi karin nimcooyinka alle kugu manaystay waa inaad mar walba xasuusnaato nimcooyinka alle ku siiyey una mahadnoqdo waana shardi ka mid ah shuruudaha laga rabo qofka ku soo biira jamaacada axmediya haddii alla ka dhigo barnaamijyada dambe ayaynu faahfaahinta shuruudaha beecada halkan ka sii wadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا رب صل على نبيك دائما
في هذه الدنيا وبعث ثاني.